Bismillah, Ishwar Warsame Digital Media. Waydin salaamay dhammaantiin labadii cajaladood oo hore ugu dambeeyey ama clip sida loo yiraahdo waxaynu ka hadalnay dhismihii jamhuuriyaddii labaad ee Soomaaliya. Waxaanu ka hadalnay waxqabadkii iyo fashilkii ku yimi dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee TFG ama Transitional Federal Government. taas oo hawsha ugu weyn oo ay qabatay waxay ahayd inay u horseedo dalka in la xasiliyo oo ciidan loo dhiso la isku halayn karo qaran iyo in la sameeyo dib u heshiisiin ballaaran. waxaad la socoteen xamar in la isugu keenay 3,000 oo ergey iyo salaadiin ka kala timi dalkoo dhan. waxaa ku baxay kharash dhan 8 milyan oo dollar. lacagtaas inna waxaa bixisay Sacuudi Carabiya, inna waxaa bixisay midowga Yurub. anigu waxaan ka mid ahaa wafd loo diray midowga Yurub Brussels si warqaddii madaxweynaha loo geeyo oo lacag markaas ay ugu deeqaan shirki qaran oo dhacaya. shirkaas wuxuu ahaa shir qaraaro ka soo baxeen dabadeedna loo kala dirayo dalka oo dhan oo la samaynayo system ama hanaan dib u heshiisiin loo sameeyo dadka Soomaaliyeed dib u heshiisiin loogu sameeyo. waa laga horyimi. waxaa ka horyimi dadkii diidanaa Soomaaliya inay dowlad ka dhalato iyo dowlad shaqaysa. waynu ognahay waxay ku dambaysay cunaqabatayntii la saaray ama lagu hanjabay in la saari doono madaxweynihii TFG. waxaa hogaaminayay cunaqabatayntaas wasiirkii horey aan usoo sheegnay ee Tigreega ee arrimaha dibadda Ethiopia Siyu Masfi oo ka dabaaqtamayay Cabdillaahi markuu cayriyay safiirkii Ethiopia iyo nin la oran jiray Colonel Gabre Muqdisho ka cayriyay markay la xigteen Axmed Cabdisalaan iyo Nuur Cadde iyo ganacsatada Muqdisho iyo ururada xag jirka ah ee Muqdisho ka soo jeeda. Cabdillaahi sheekadiisii halkaasay ku dhammaatay. waa isagii iscasilay dabadeedna aaday dibadda. yaa meeshii yimi? waxaa yimi Sheekh Shariif Axmed. waa nin aan soo maamulin dugsi quraan wax ka weyn. intii yaray oo xasan daahir caways iyo nimanka habargedirka ay rabeen wejiga inay beddelaan maxaakiimta oo ay nin abgaala keenaan, laakiin hawsha uu watay xasan daahir caways. ninaan haddee dowlad fakradba ka haysan oo capacity waxa la yidhaahdo ama waxqabadkiisuba uu kooban yahay aqoon ahaan iyo waayo aragnimoba. nimanka ajnabiga oo keenay oo leh maaragtay waa qunyar socod
waa ku yar socod yani soomaaliya loo danayn maayo waxqabad loo danayn maayo waxaa loo danaynayaa ururada xag jirka ah in loo sameeyo qolyaha kale layaha sunna wal jamaaca oo kasoo horjeeda sidaana lagu kala qaybiyo kooxaha diiniga ah sidaas ayuu ku yimi sharif axmed haddee sharif axmed ninka kabastile waa ninka ilaa 40 generaal sameeyey oo xataa gobollo iyo degmooyin markuu sii dhacayay abuuray oo dekreto soo saaray ninka saasa weeye wax kasta qof ahaanba ha ahaadee qofkii hadduusan lahayn yacni kartidii iyo aqoontii iyo waayaaragnimadii iyo ilbaxnimadii dee wax ma hogaaminayo dowlad ma hogaaminayo dabcan yaa ka dambeeyey xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud yacni waxaa la sheegay inuu maaragtay uusan dalka ka bixin laakiin dalka kama bixine muxuu dalka ka ahaa xasan wuxuu ahaa dadkii bililaqaystay spoils of the Somali state yacni waxbarashadii soomaalida iyo haddii la kuuro yahay daarihii wasaaradda waxbarashada iyo nin bililaqaysta weeye iyo dhul badan wuxuu ka mid ahaa mawlicii generaal maxamed ninka la yidhaahdo maxamed faarac caydi wuxuu ka mid ahaa xataa ka mid noqday maxkamadihii ardadii wax ku baranaysay simad iskuulka uu bililaqaystay oo loo oranayay sidam ardadii xataa waa fasaxay siday dagaalka uga qayb galaan sidaasay ku timi waxa la yidhaahdo dambul jadiid macnaha waa la kala baxay qaarna waxayna dagaalka naga daaya qaarna waa gelayna isagu qolyihii dagaalka iclaamiyey buu ahaa oo ardadii u diray imise arday baa ku dhimatay aad u malaynaysaa baydhabo agagaarkeeda markay soo weerareen baydhabo oo ay leeyihiin ragga ay ka mid yihiin indha cadde iyo addisabaan maaragtay salaada ku tukan doona xasan wuxuu isku dayey ilaa waa ninkaa usoo bartay bililaqe ah xataa lacagtii intuu madaxweynaha ahaa lacagtii la friis gareeyey ama la joojiyey ee bangiyada adduunka taalla inuu looyaro oo soomaaliya inuu looyaro u samaysto in la soo saaro oo qaar u dhacay oo haddeer looyaradii qaarkood maxkamad loo haysta america ninka saasa oo wax walba iibsaday wax walba dhacay dhul dhacay xataa kuwii dhulkii dowladda iyo daarihii dowladda dhacay ninkaa weeye ninka madaxweyne soomaaliya ka dhigta mushkiladdu waxa weeye innagii maba fakarayna war qofkaan muxuu ahaa muxuuse qabtaa qofku xalay ma dhalan qofku waa soo jiray muxuu soo qabtay in lay su-aalo weeye ninkaasaa ka dambeeyey ninka la yidhaahdo sheekh shariif yaa ka dambeeyey xasan maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo intuu america joogay horta waxaa la yidhaha diblomaasi bu ahaa horta kaashiyeer buu ka ahaa waagii siyaad barre dalka xukumayey safaaradda maraykanka ayuu safaaradda soomaaliya ee maarata washington ayuu kaashiyeer ka ahaa xataa secretary ma ahayn dabadeedna markii dalkii maaragtay dee dowladdii siyaad barre dhacday waa isagii dalkii joogay waxyaalaha la sheego waxaa ka mid ah inuu urur soomaaliyeed oo yacni jaaliyada uu madax u noqday oo laga furfuri waayey yacni intuu wax qarribay laga furfuri waayey si kasta inta la yeelay iyagiina iska hor keenay intuu baafala joogay hawl macnana male cubicol waxaa la yidhaahdaa marka qofku shaqaalaha hoose markay telefoonada dirayaan oo dadka customerska ay la hadlayaan cubicle yar baa loo sameeyay telefoon iyo reference book halkaasuu ahay isagoo saasa ayuu wuxuu noqday ra-iisul wasaare intuu ra-iisul wasaare joogay wuxuu xustaa symbolismkii siyaad barre hooyooyinka iyo haddii laa kuuna yahay waxyaalo yacni beenbeen oo wadaninimo la iska dhigo sida maaragtay ciidankii veteraanka oo dagaalkii etoobiya maaragtay ku dhaawacmay xaggay joogaan iyo isbitaalka madiinay joogaan iyo haddii laa kunayo ereyo maaragtay slogan ah maaragtay waddan iska yeelyeela weeye dadka soomaalidu maadaama xasan oo kaleba ay keeneen uma fiirsadaan
uma fiirsada ninkaan dib uma raacaan dabadeedna hawshii prime ministerka ayuu qaban kari waayay iska daba wareeg ilaa markii dambe la cayriyey maxaa lagu cayriyey ma aha isqabad siyaasadeed wallaahi waxa lagu qayriyey waxa lagu cayriyey waxbaa socon waaye xafiiskii waxbaa ka socon waaye nin yacni fiishan leh oo wax qabanayo wax meel marsiin kara maaha waa sidaa hadda dhacday iska daba wareeg doorashadaas imisay socotaa hadda doorashada hadda lagu jiro imisay socotaa imise carqalad buu keenay imise mushkilo imise shir baa la galay waa wax simbala oo ah war doorasho ha la aado ninka noocaasa ayaa madaxweyne Soomaaliya ka noqday sidii uu maraku dhagda uga ahaa ururkii Soomaaliyeed jaaliyadii Soomaaliyeed ee America ayuu bila Soomaaliyana maraku dhag ugu noqday maraku dhag bal kaale ka furfur وهدي هذا مركز لا دورت سوي يلي انت اصلا ربي ما تعرف لو ذاك عادي هذا ما ست